in la ogaaday geeridii Liz Dolores, geeridii Nancy, geeridii Lee iyo geeridii Annaba. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. dhammaantiin waa idin salaamay salaan ka bacdi. maanta waxaan rabaa inaan idin kala hadlo case ku bilowda hal wicitaan laakiin se ku dhamaaday cadaalad 3 qof iyo ka badan. Case-kan wuxuu ka dhacay state-ka South Carolina, waana case ahaa case-ka ugu muruga badnaa marka aan inta cases-ka aan sameynay aan arkay. Case-kan intaan horta case-ka u guda gelin waxaan xaqiina ka rajaynayaa inaad nagu caawisiin like-ta, share-ka iyo comment-ga. waxay ahayd sabti August 28 2021 gabar ayaa waxay wacday askarta waxayna ku tiri hooyaday qofkii hayay muusan imaanin muusan aan soo wicin marka falkan falay u rajaynayeen ma hayno badanaa sidaan u dhaco waa fal ku cusba. askartii markay intii u sheegeen askartii marka magaca qofkii u sheegeen qofka waxa waaye Adna da'deedan waa 80 jir. askartii marka xoogaa information-kii markay aruuriyeen waxay isdhaaheen bal numberkii Adna ay qaateen Adna ay ka waceen. Adna numberkii ma jawaabin oo voicemail ayaa ku soo booday. markuu voicemail ku soo booday waxay waceen marka familkeedii ay la xiriireen waxay dhaheen hey Adna ayaan darteeda noola soo wacay waxaan rabnay inaad idinka inaad wax xog aad ka haysiin. familkiina waxay dhaheen niyo wax xoga kama hayno oo telefoonkeena nalama qabanayo anagana. bas waxaa dhacday marka askartii waxay qaateen search warrant ay raadsadeen guriga Adna ay aadeen. guriga Adna markay aadeen waxay ugu tageen eygii guriga joogo laakiin se gurigana uusan u ekeen wax la soo jabiyay ama wax tuug soo galay everything sidooda u yaaleen. waxaa laakiin se maqnaa gaarigeeda banaanka muu yaalin, daawadayaasheedii miiskeeda ma saarneen, kabaheedana qaar baa maqnaa. inta askarka markay arkeen waxay dhaheen marka waxaan raadinaynaa inuu information-ka gaarigan halku ka baxay. marka askarta badanaa waxay haystaan tracking system oo gawaarida qabanayso. so gaarigii markii tracking system-koodii ay ku raadiyeen week kadib markay ahayd September 3 2021 ayaa waxay arkeen gaarigii oo parking ku jiro oo meesha parking ku yaalo waxay ahayd hotel loo yaqaano Best Western Hotel. magaalo wuxuuna ahayd magaalo magaceeda ay tahay iyadana Travelers Rest. askartii waxay u tageen company-gii waxay ku dhaheen hey gaarigan ayaa qofkii la halaalsan yahay marka kaamiradii aan rabnaa inaan aragno dad kaamira leeyihiin. waxay ku dhaheen oh yeah actually parking-keena kaamira qabanaysa jirto. great idea. waxay fiiriyeen marka kaamiradii inay information-ka ka heli karaan. waxay arkeen marka gaariga waxa ka soo baxay nin da'da middle age-ka gaariga ka soo baxay gaariga banaankiisu tirtiray waana ka dhaqaaqay. so hadda mystery-ga kood waxay noqotay ninka ayaa waaye in ninka la raadiyo information-kiisa la ogaado ayay maogtahay waa inay la ogaado si lagu heli lahaa. bas information-ka marka kaamiradan kadib waxay isku dayeen haddana kaamirayo kale inay fiiriyaan. gurigeeda kaamirayo company-ya ku dhawaayeen oo store-a ku dhawaayeen store-adii kaamiradooda iyadana inay fiiriyaan ay isku dayeen. marka waxay arkeen markay ahayd August 27 2021 waxay ahayd maalin Jimcaha. maalintaas ayaa waxay arkeen ninkii oo ay ku arkayeen hotelka gaarigeeda ka soo baxay oo joogo meel parking lot kana gaarigiisa sedan uu watay. meesha parking lot-ka company-gu marka meesha wax ka soo gadanayo waxa loo yaqaan store Food Lion. ninkan gaarigiisa meesha ku parking garaystay store-kan Food Lion ku galay waa soo adeegtay adeegiisa marka sheeyaal marka ninkay ku aqoonsadaan oo soo baxday waxay ahayd ninka wajiga ay wuxuu ku lahaa bar uu ku dhashay. and then markuu adeeg gadanayana wuxuu ku gatay Cuban oo baalkaasna marka wuxuu sheegaa qofkii iska lahaa ama information-kiisa si lagu taraagareeyo ay u fududeeyeen. ninkii adeega uu gatay marka waxaa kamid ahayd yogurt oo maaragtay koobka yar ku jirto ayuu gatay. so ninkii wajigiisa ay arkeen sabraan ay ka qaateen information-kiisa iyo xogtiisa way urursadeen. marka waxay isku dayeen marka kaamirada store-ka ay fiirinayaan Food Lion-kan parking-kiisa waxaa marka ay soo galay Adna iyadana parking-ka meesha banaanka ay dhigatay. markuu ninkan store-ka ka soo baxay gacanta u wave gareeyay sida laba qof oo is yaqaano uu baxay gaarigiisa ayuu aaday wax buu kala soo baxay gaarigeedu ku soo laabtay. way israaceen so iyada gaariga kaxeynaysa way israaceen guriga Adna la aaday. marka guriga Adna markii la aaday ayaa cabaar 2 saac kadib markii la joogo ayaa gaariga haddana parking-kii Adna uu ka soo baxay wuxuu ku soo laabtay store-kan Food Lion-ka parking-kiisu ku soo laabtay. marka wuxuu dhigtay meel albaabka store-ka ka fog oo gadaal ah say kaamirada u qabanin. and then uu ka soo baxay wuxuu qaatay gaarigiisa sedaankiisa gaarigii uu ag dhigay. marka vanki ayuu wax ka daldalay wuxuu gelinayay gaarigiisa. askarta marka meeshan waxay kaga shakisan yihiin waxa uu daldalay inay tahay Adna ama qofkii uu qaaday inay tahay Adna jirkeeda ama Adna naftirkeeda inuu gaarigiisa gelinayo. laakiin hubaal iyo wax information lama hayo. bas ninkii markuu gaarigiisa wixii geliyay jeepka oo Adna iska leed uu qaaday hotelka hortiisa soo dhigay uu soo lugay gaarigiisa u imaaday waa baxay sidii ku dhaqaaqay. marka
askarta marka information kan markay wada aragtay ma hubto inuu adna asaga soo qaaday ma hubto inay tahay wixii gaariga la gelinay inay ida tahay waa assumption waxa ayaga ay malac ay meesha la fadhiyaan waay bas familkii la sii hadleen iyo asxaabtii waxay weydiin information kan waxay dhaheen adna gaarigeeda qof ma uu ogolaato ama gaarigeeda la iskama qaadan karo sida awgeed waxay dhaheen ninkan waxaan ku qabsanaynaa waa tuug amal gaari aansan asaga lahayn ayuu waday bas in la soo arrest gareeyay noqotay adna waxay degan tahay South Carolina ninkan wuxuu degan yahay North Carolina so labadii police marka iskaashteen ninka gurigiisa ayaa la aaday sidii ayaa lagu soo arrest gareeyay askartii markay iskaashteen ninka waa la soo kaxeeyay waxa la keenay police stationka markii meesha la keenay oo qolka maaragtay su'aalada la isku weydiinay la keenay xaalada ay wuxuu dhahay okay aniga maxaa halkan la keenay askartu waxay ku dhaadeen yahow waxaan raadinaynay qof la waayay August 28keeda nolol soo wacayo magaceeda adna markaas waxaana loo sheegay meesha ay degan tahay South Carolina inay ahayd wuxuu dhawaanay magaalada weligiiba state-ka weligiiba ma tagin wax wara kama hay askartii marka waxay dhaheen okay laakiin adna ma taqaana wuxuu dhahay qofta qof aad u fiican ay ahayd waxay ahayd qof bini'aadanimada ku wanaagsan waa qof asxaaban ahayn marar badan ayay anigu waxaan ahay qofka gacmaha wax ku hagaajiyo xamaaliga gacanta ku shaqeysto marka waxay ii tira gadaad waxyaalaha aniga adii hagaajisid ama gurigayga sidii maaragtay dadka musqulaha iyo electronic iyo waxyaalahan ka shaqeeyo aha haddaad ii hagaajisid waxa laga yaabaa clientyo kale inaad heshid oo sida adiga aad ku faa'iidid ninkan intaa markuu uu sheegay ayaa wuxuu dhahay laakiin aniga ma ogi meeshay joogto marka sawiraantiisii markuu dukaanka ka adeeganay ayaa la soo aruuriyay waxaa la dhahay qofkan yaa waa marka sawirkan aad u jeedid yaa waa qofkan wuxuu dhahay ma ogi aniga meehi uma maleynayna nahay andeen sawiraanti kale aad kaamirada wajigiisa dhinac kale ka qabanaysaa soo adeeganayo soo gaariga galay wuxuu dhahay actually aniga waa u dhahay qofkan gaariga adna maanta waan israacno dhahay waxaan iskugu raacno dhahay marka adna iyada ay soo wactay waxayna igu tiraadeen iyo waxaan la kulmooyaa qof sirdoonkaana waan ka cabsanayaa oo sirbaar sida dadka maaragtay sirta baariyo waxyaalada waanan ka cabsanayaa laakiin adigan ku aaminsanahay waa maadaama aad qof military soo ahayd marka waxaan rabay inaad igu helisid oo i raacdid sidii ayaan ku hayo ku ogolaaday u dhahay oonan ku raacay gaarigeedan qaadanay u dhahay meeshii ayaan aadnay qofkii malaal kulmin oo uu noo gambiyay waan ka tagnay u dhahay gurigeedaan aadnay waa cabaaraan halkaas soo joognay waan ka soo laabanay gaarigeedii marka aniga meeshaas iskugu kendabaysu dhahay marka ani aadna meel ay joogto moogi askarta markay arkeen marka inuu su'aal ka jawaab roon uu markii koowaad ka bilaabay state-kaas aniga weligay ma aadin state uu aaday uu markii dambe qiranayo waxay marka garwaaqsadeen iyo ninkan gurigiisaan haddana baarno gurigiisii markay dhaheen waan baaraynaa search warrantiga ay doonteen guriga ay aadeen gurigii markii baaritaan lagu qabto horta waxaa loogu tagay 22 xab qori oo guriga taalo waxaa kale loogu tagay baasabooro dad kale iska leeyihiin ayaa gurigiisa yaala sida maxaa social security numberka baasaboor bank account debit card information on asaga lahayn ayaa guriga loogu tagay information kaasna waxaa iska leed marka gabar naag loo yaqaano iyadana maxaa la Nancy Rex waa 66 jir information kaas markay arkeen ay intaas fiiriyeen then askartu waxay kala ogaadeen inay gurigiisa taalo 28 telefoon oo kala duwan markay askartii information kan markay soo wada aruuriyeen qasab waxa information waxa loo diraa marka kuwa maaragtay soo baarayo soo fiirinayo xaalkooda inay qof DNA-ga inuu qof kale iska leeyahay maxaa ku jiro information kaas inay kuwa soo baarayo laakiin askartii markay arkeen information qof kale inuu meeshan ku jiro waxay dhaheen sheekadan adna bas way ka weyn tahay ninkan waxa laga yaabaa inuu dad kale ay gacantiisa ku maqan yihiin sidaa darteed FBI-dana sheekadan lagu soo daro waay askarta marka waxa FBI-da story lagu soo daray FBI-da marka waxay la wareegtay iyadana xagga maaragtay su'aal weydiinta iyo waxyaalada FBI-da markay arrinkiisa la wareegtay ayaa way la fadhiisteen marka FBI-da ninka labada nin bay ahayn mid kamid ah wuxuu dhahay niyahow horta waxaa tahay nin caaqil ah ninkii nin maasha Allah waxaa tahay camal ay bala ka dhacday Danielka waa qosla marka inuu qoslo wuxuu leeyahay niyahow weligay ma arkin nin ku hor fadhiyo la amaanayo marka waa ku hor fadhiyo amaantan intay u socotaa uu leeyahay ma wuxuu leeyahay niyahow adiga kaliya ma ahan dad badan oo la kulmay oo waxaan arkay maskaxdooda iyo fikradooda aad u dheer tahay marka adigana kuwa baad ila mid tahay oo nin maskaxiyan inaad tahay ayaan garwaaqsado ayaan kula wadaagaya wuxuu leeyahay okay ma xuma marka meeshan FBI-da wax bay sameynayaan waxay sameynayaan qofka bini'aadanka in amaanta lagu badiyo la amaano uu qofku isla tagaa markuu isla tago wuxuu bilaabaa marka inuu runta sheego waxa dhacay waxyaalada midaas ay filanayeen meeshii may ka soo bixin oo qofkan information ka still wuxuu soo istaagay nimayow inta maxaad u joogtiin arrinka adiga rabtiin aan ka wada hadalno bas FBI-da wuxuu leeyahay niyahow waxaan rabnay inaan kaala hadalno adna waxa ku dhacay wuxuu dhaha marka aniga adna warkama hay adna wuxuu ku dhacay ma ogi markaasaa FBI-ga wuxuu leeyahay niyow haddaad kabahiga ku jiri lahayd maanta oo maanta hawsha aniga aan qabanay adiga qaban lahayd say kula noqon lahayd sad ku qaban lahayd arrinkan wuxuu dhahay niyow horta kabahaga kuma jiri oo kabahaga haddaan qabo hawsha adaan qaban lahaa laakiin aniga maanta meeshaad adiga ku jirto kuma jiri waayo adna hataa warkama hay
adaaba information kan iyo arrinkan la socota ماشي باش وي دقائق ويسي هذا الكي ماشي ايو كسعون واي اف بي ادم marka waxay dhaheen niyow okay Nancy ka waran Nancy Rigo ka waran iidan xaalkeeda waa maxay wuxuu dhahay niyow aniga iyo Nancy you know waa behind the scene waxa la soo ogaaday moogtahay asagii Nancy inay soo gaayeen 2015 oo xiriir soo dhaxmaray marka wuxuu dhahay Nancy waqtiga hooyadeeda la nooleed inuu xiriirka soo dhaxmaray ayuu ka hadlay hooyadeeda Nancy waxa loo yaqaan marka Dolores Seller ka markay idane way dhimatay markay dhimatay ayaa markay ida atabsiga la geeyay waxa la dhahay natural cause oo dhimato ida iska dhimatay qof lama dilin waxba lama gaarsiinin marka wuxuu dhahay waqtigaas ayaan ida isgaranaynay laakiin ida naftirkeeda nolosheeda wax warkama hay you know marka hala yar information ka Nancy hooyadeeda markay saa u geeriyotay abaar kadib waxba badan may ka dambeeynin ayadana way geeriyotay hadda matay Nancy weligeeda lama soo report garaynin oo lama dhihin waa la laasan yahay lama sheegin waayo mana la duugin oo you know processka duugintii wixii may marin and then numberkeedana qof ay isticmaalayo familka la hadlayo salaamayo oo iska dhigay Nancy emailna dadka familka qaraabada qof u diraayo asagana iska dhigay inuu qofka Nancy yahay Danielka marka wuxuu la wareegay awoodda ma aragtay qofka handuu xanuunsan yahay ama uusan halan karin qof u hadlo oo waxyaaladiisa u maamulo awooddaas ayuu kala wareegay Nancy bangigeeda iyo informationkeedana asaa gacanta ku hay asaa marka maamulaya intii ay isagii FBI day madaxa iskula jireen oo arrinkan socday askartii waa kay alaabtii ay kale telefoonadii iyo waxyaaladay soo heleen ay soo baarayeen askartii markay soo baareen telefoonada waxa laga helay horto telefoon ay Nancy leedahay ku jiray waxa laga helay telefoon ay hooyadeeda Dolores ay leedahay ku jiray waxa laga helay adana telefoonkeedii waxa kale laga helay naag iidan Florida degan oo Lee Goodman la dhaho telefoonkeeda laga helay meesha so afar dumar ayaa meesha isku imaaday waa wax fajac ku noqday askarta xabadihii iyo wixii ay kana la soo helay askarta waxay dhahayn markii la raangaray ama la fiiriyay waxa la ogaaday xabadahan xitaa serial number ka maartay xabad kasta wadato qalad ay ahaayeen ama way isdaba marsanaayeen ama qaar serial number may qabin marka ninkan afar count kale oo dambi ah korka laga saaro waxa la inuu adiga horto adoo felony haysatay oo qof felonyga marka qofka markuu haysto waa qof aan xabad gadan karin adoo felony haysta horto koow xabadaad haysatay dambi waa xabad aad haysatid masiix ma waxa ku sii dheer al dhahay xabadaada xabad sharciyeysan maahan ama number qaldan aan ku qoran ama number kuma qorno so already dambigaas ayaa ninkan madaxa loo saaray oo kiiba lagu haystay dambiyadan kale marka ay ka baaritaankooda ayaa socday iyo arrinkooda askarta waxay soo ogaatay marka Lee Goodman inuu iyadana la kulmay markay ahayd September 28 oo iyadana ay tahay maalimihii uu la kulmay cabaar yar kadib in iyadana la waayay jirkeeda weligeeda lama helin informationkeeda lama hayo inay isla kulmeen oo maalimo gudahoodana oo iyadana ay ku disappear gareysay oo sidii lagu waayay ay kana askarta u soo baxday markay ahayd September 23 2021 ay haddana askarta waxay raadsadeen search warrant kale inay gurigiisa zaid u sii baaraan tribgan markay isticmaalayaan informationka ay heleen telefoonada ay ka heleen Nancy iyo Lee Goodman informationkeeda inay isticmaalaan ay leeyihiin ninkan ama wax kala waliba qarinooya oo wax kala haya gurigiisa sidii ay ku tageen markii guriga baaritaan kale lagu qabtay guriga waxa laga soo helay horto daawo oo Nancy iska leedahay oo qof kale lahayn ayaa guriga laga helay 3 daawo oo culus oo mandooriya dadka ku noqda ayaa guriga laga soo helay waxa kale guriga laga soo helay bacad oo guriga taalay iidane oo alaabiyo wax ku jireen waxa laga soo helay zip tiger oo maartay baash lagu xiranayo waxa laga soo helay taser waxa laga soo helay daawo la burburiyay oo maartay qofka cuntada loogu dari karo ama si kale loo siin karo intiba askartii way soo aruurisay markasta ay marka information soo qaadato waxay u dirtaa shaybaarka si loo soo fiiriyo information kan ma wax xog fiican ayaa laga helayaa ama wax ka duwan inta markay dhacday October 9keedii xaaskiisa arrinkii ayaa ku batay dhibaatadii ayaa badatay markay waxay go'aansatay inay gurigan ba iska gad asxaabteeda ay wacday markay xaladnimo kale caabiya guriga aan kalin gareyno si aan ugu diyaarino qofkii gadan lahaa asxaabtii guriga la diyaarinaysa la hagaajinayso gurigooda markay yaad weyn u lahaa geedaan ka baxsanaayn geedii dhexdooda box waxa yaala ku qoran boxki shinida boxki ay soo qaadeen qof marka markuu boxka arkay wuxuu wacay askarta wuxuu dhawarnimay oo boxan halka aragnay xog asay ayaa isagana ku jirto waxa laga yaabaa inay idin caawiso askartii warranty kale hadana doonanayaan say boxka soo qaadaan ayna u fiiriyaan wixii ku jira boxki marka asagana waxyaalo badan ay ugu tageen yogurtkii uu soo gaday caagisi oo ebra oo meesha ku jiro waxay ugu tageen jeep furihiisa waxay ugu tageen badisha dhulka lagu qodo waxay ugu tageen boorsad waxay ugu tageen xirig agtiisa marka meel 3 feet u jirtana bac kala taalay
bac madow ayaa meesha taalay. Bacda madow marka waxaa ku jirta dhego waxaa ku jira jijin, waxaa ku jiraan kabo. Askarta marka intii way qaadeen, intii markay qaadeen waxay u direen meesha shaybaarka si loo soo fiiriyo iyadana oo loo soo ogaado maxay kala yihiin ama yaa iska leh ama ma DNA xitaa laga heli karaa. intii marka halkaas ayaa la geeyay. markii shaybaarkii la geeyay maaragtay bacdi madoobeed, bacdi cadeed, dhegihii, kabihii, badiishii, informationada adiga laga wada helay boxkii. marka waxaa la ogaaday dhagaha, jijintii iyo kabihiiba waxaa iska lahayd Edna. waxay ahayd Edna ayaa la DNA-geeda laga helay. bacdi cadeedna Edna DNA-geeda laga helay. intaa markay ogaadeen askartu waxay dhaheen maybe Edna meeshan kama foga, gurigaan ayay meel ooga jirtaa. waxa maalintii labaad waxay way imaadeen gurigii, waxay keeneen marka eegooda. eegiga guriga imaaday, uu baaray. eegi marka wuxuu sense gareeyay meesha maaragtay bacdii waxyaaladii yaaleen inay dhiigga bini'aadanka ama informationka in meeshaas ay taaluk sense gareeyay. laakiin maydka Edna weli waa la soo saari waayay, oo meesha ku jiro waa la ogaan waayay. bas askartii marka intii markay heshay oo la ogaaday meeshan in DNA-gooda inuu yaalo. kaaga daran caaga maaragtay yogurtka asagana waxaa laga helay daawayadii oo Nancy lahayd oo lasoo qadqaaday, ayadoo daawayaashaas oo isku jiraan oo meesha wuxuu ku daray yogurtkii. waxaa la ogaaday marka inuu yogurtkii ku daray daawayaashaas uu qofka siinay. waayo daawayaashii positive soo laabatay markii la fiiriyay baakedyadaas ama baakedka yogurtka meesha qalalnaa markii la fiiriyay waxaa positive laga helay inay daawayadaas ku jiraan cuntadaas ama yogurtkaas. October 13 markay ahayd 2021 FBI asagay kusoo laabteen. waxay dhani oo dhageyso cadeymo badan hadda haynaa oo aan haynaa maaragtay telefono guryaha adiga aadan lahayn, telefoonaadan lahayn in gurigaaga la helay, ID information adiga lahayn in gurigaaga la helay, qoryihii, DNA-ga dadkii meeshii, daawadii oo laga helay yogurtka dhexdeeda. intaaba waan haynaa. marka waxaa waaye hadda meel aad u baxsanaysa ma lahay si fiican inoola hadal. marka FBI waxay filanayaan ninkan inuu xoogaa is adkeyn doono, uu dhihi doono niyo aniga waxba niiba sheegay inuu waxba masoo wadi. wuu ka yaabay, wuxuu dhahay nimay waa niila hadlaa, laakiin aan niila hadlo shuruuduhu la imaaday. marka shuruuduhu la imaada waxay ahayd wuxuu dhahay midda kooda horta kaamirada moogta qofka markii interviewga laga qaadayo meesha askarta la geeyo waxaa laga soo horjeediyaa kaamirada. wuxuu dhahay horta midda koowaad kaamiradaas iga damiya si aanan niila hadlo oon si fiican aan u hadlo. midda koowaad hayaa la dhahay oo waa laga yeelay in kaamirada laga damiyo. midda labaad wuxuu dhahay lawyer waa inuu joogo markii su'aaladan aan idinkaga jawaabay ama markaan hadlaayo waa inuu lawyer ila joogo, waa laga yeelay. midda saddexaad wuxuu dhahay waa inay death penalty ilaan qofkan moogtahay hadii lacala lagu helo inuu dad uu dilay ama dambiyada ku soo baxaan death penalty optionkeeda in iyadana meesha laga saaro, xirigan liigaga dhigo waxiga. midda afraadna wuxuu dhahay in federal legal charge garan marka badan ama dambi laba state ka dhaco ama qof inuu state dambi ku sameeyo state kala aado federaalka marmar la wareego dambiga oo qofkii dambigiisa waa sii weynaada. federaalka ay kana waxay qabaan maaragtay capital punishment way leeyihiin state laakiin qaar aysan qabin. intiiba adiga waa laga yeelay ninkii waxaa la okay nala hada. marka wuxuu dhahay nimayow arrinkan waa arrin aad ii guwaay, waa arrin aan ka nisan lahaa, waa qalbi laakiin nafteydii aan ku qanacsanayn oo anigii ayaa dhibaato ku qabay mar un inaan sheegaan jeclaan lahaa. marka waxaa lahayd marka maxaa dhacay. marka wuxuu dhahay intaan nigaaga bilaaba yaan ka bilaaba ma 1 2 3 4 inuu qofkeen ka bilaaba. askartu way yaabtay inuu FBI da ahayd way yaabtay. marka waxay dhaheen inuu kooba ka bilaabo. okay kooban ka bilaaba u dhahay. waxay ahayd u dhahay qof asxaabaan nahay ayaa qaraabadiisa u baahnayd in la caabiyo ayaan caabiyey. marka qofka markaa ka hadlaayo waa Nancy, qaraabadana waa hooyadeeda Dolores. qofkaas ayaan caabiyo dhahay, waxaanan ku caabiyo dhahay kaniiniyadii ayaan siiyay euthanasia si qofka maanta waxa jirto marmar daabo ama wax la siinayo uu qofka sidii ku dhimanayo qofkaas sidaasan ku caabiyo dhahay. so waxayna dhacday dhahay markay ahayd November 17 daawadaasaan siiyay. marka waxaa la yaab noqotay qoftii maamadan Dolores markii la baaray koowaad ay geeriyootay waxaa la caadi u dhimatay, laakiin already kuwii sameeyeen autopsy-ga information-ka way misgareen. qofkii labaad wuxuu dhahay waxay ahayd Nancy. waxaa dhacday dhahay markii hooyadeeda geeriyootay waxay bilowday walaac iyo kurbo iyo murug iyo waxay la imaaday inay dhahdo niyo arrinkan askarta inaan u sheego waa sidaan kuma hayni karin. marka wuxuu dhahay markii aan ka dareemay uu dhahay inay hadli rabto ama waxaan sameeyay uu dhahay marka ahayd November 2017 ayadu waan qaaday dhahay waan xaday oo disappearance-keeda markaas uu dhahay markaan ka qaaday uu dhahay waxaan sameeyay uu dhahay marka January 2018 ayaan iyadana dilay waxaan ku dilay dhahay xabad. qofka saddexaad wuxuu dhahay waxay ahayd Lee Goodman. qofkan iidab aan xadir rabto dhahay oo in Europe garayso lacag iga qaadatay isku dayday. marka ayadana arrinkeeda wuxuu dhacay dhahay marka ay September 2018 waxayna ku dhacdo dhahay within few days kan isbaranay gudaheeda ayaan iyada ku dilay dhahay. qofka u dambeeyay waa Edna u dhahay. marka Edna
waxay ogaadeen inuu daawo siiyey kaniiniyadii uu isku dardaray uu ka dharjiyey markuu kaniiniyadii ka dharjiyey iyadii marka waa kidnap gareeyay ilaa gurigiisu la aaday ogow South Carolina uu ka qaaday ilaa North Carolina uu geeyay gurigiisa ayuu geeyay markuu gurigiisa geeyay meesha ayuu ku dilay marka adna wuxuu dhahay iidane sidii ayay ku dhimatay marka arrinka adna askarta marka waxay jeceshahay hadii meedka oo kale qofka la helo inay fiiriso informationka halka ka soo bixi karo markii ka soo wareegatay marka uu askariga xudaniyahow qoftan familkeeda inay ogaadaan ay rabaan inaad noo sheegtaan jeclaan lahayn meesha xitaa aad ku qarisay si ay familkeeda si fiican ay ugu duugtaan wuxuu dhahay meesha waan idin geynaa u dhahay laakiin meel adi 3 feet u jirto ayaan idinkugu fiiqaa u dhahay exactly marka ka raadsada bas 8 bilood markay ka soo wareegatay arrinkan marka waxa waaye May 16keeda 2022 ayaa wuxuu dhahayaa asaga wax markii meesha la geynaa fartu ugu fiiqaya meeshii markii la baaro waxa loogu tagaa meedkii oo idna ku jirto oo jewelry-geedii iyo dharkeedii marka meedkeedii muu sii halaabin bazaid waa la soo bixiyay waxa loo diray shaybaarkii markii loo diray waxa la ogaaday marka inay adana jirkeeda horta waxa laga helay daawayadii uu soo xaqiiqasay jirkeeda ayaa laga helay waxa kale la ogaaday dhimashadeeda waxa lagu xugmiyay inuu noqotay inuu ku dilay bacdi cadad oo DNA-geedna laga helay inuu qorta u galiyay uu qorta sidii ooga xiray sidii iyadana ku dhimatay bas ninka marka dambiyadiisa dhan waa sheegtay meedadkii iyo kuwa qaar marka ma hayu dhahay oo hada Lee oo kale meelan ku tuuray iyadana inuu foresting ku soo tuuray laakiin waxyaalo kale warka ma hayu dhahay informationka adiga markii la ogaaday askarta waxay xukmiyeen ilan go'aan wararka boogtay qoolna waa ka xirmaayo waa ka yidhaheen waa waxaan kula gelinaa plea dealka inaadan death penalty waxa lagu siinaynin marka ninkii adiga waxaa la xiray xabsi daa'in uusan soo baxaynin soo noloshiisa inta ka dambayso xabsiga ayuu ku dhameysanayaa halkaana marka waxay noogu eg case-kii ku bilowday hal qof oo ahaa Edna laakiin se ku dhamaaday in la ogaaday geeridii Liz Dolores geeridii Nancy geeridii Lee iyo geeridii Ednaba oo hal qof inuu ka dambeeyay waxaan idin rajaynayaa khayr assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu